dhanka iyo koonfurta Soomaaliya haddii aynu eegno deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhawaan ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay al-shabaab kala wareegeen waxa la sheegay in habeenkii xalaha uu ka dhacay iska horimaad dhexmaray ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda al-shabaab oo isku dayday in deegaankaasi ay dib u qabsato balse ma ay suuro gelin hase yeeshee xaaladii ugu dambeysay ee deegaanka ayaa waxa warbixin ka bixiyay sarkaal ka tirsan ciidamada halka ku sugan oo ka tirsan guutada 14 Oktoobar la yiraahdo halka waxa la sheegayaa in dagaal xoog leh oo xaray ku dhexmaray al-shabaab iyo militariga dawladda federaalka Soomaaliya khasaare ayaana la sheegayaa inuu ka dhashay hase yeeshee ma jiraan warar rasmi ah oo ka soo baxay labada dhinac ee dagaalamay oo muujinaya ama ka hadlaya khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee al-shabaab ay ku soo qaadaan deegaanka Sabiib tan iyo markii toddobaad ka hor ay militariga dawladda federaalka Soomaaliya ay kala wareegeen asbuuc wax ka yar kadib ayuu imaanaya weerarkan kadib booqasho uu halkaasi ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dhiirigelin u sameeyay ciidamada halka la wareegay oo uu kula dardaarmay inay xajiyaan ammaanka deegaanka isla markaana ay sii wadaan howlgallada noocan oo kala ah ee al-shabaab laga xoreynayo deegaanada ay maamulaan saraakiil u hadashay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku sugan Sabiib ayaa warbaahinta waxay u xaqiijiyeen in dagaalka al-shabaab ay iska difaaceen isla markaana al-shabaab ay ka diyaan xubno kamid ahaa kuwii weerarka soo qaaday balse tirada ma ay sheegin hase yeeshee wararkaasi ma aha kuwa lagu kalsoonaan karayo deegaanka Sabiib iyo caan oo leh duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhowr toddobaad ka hor waxa ay ciidamadu la wareegeen dagaal kula wareegeen waxna ay sheegeen in aanay dhici doonin in militarigu halkaasi baneeyo haddaba sarkaal kamid ah guutada halkaasi gacanta ku haysa liirada 14 Oktoobar ayaa warbaahinta la wadaagay xaaladda amni ee deegaanka sidoo kale tan waxa uu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay isku soo dhiibeen waxa kale oo uu sheegay in ay jiraan xubno kale oo daneynaya inay ciidamada isku soo dhiibaan hase yeeshee ka baqaya kooxda ay ka tirsan yihiin balse waxa uu sheegay inay isku dayayaan in goobaha ay joogaan ay ciidamadu gaaraan si ay isku soo dhiibaan waxana uu xusay in cidii aan is soo dhiibin intaan dagaal lagu qaban ka hor ay marin doonaan waxa uu sharcigu ka qabo maanta waa maalin khayraad waa maalin roobaad ase wada jeedaan hadda dadkii aan soo qoyay oo howlgalladii iyo nidaamkii hadda aan ka soo xarooday deegaankan waxa la yiraahdaa deegaankan waa deegaanka Sabiib deegaano kale oo ku xeeranaa jira oo la yiraahdo Caanole Mareerey la yiraahdo Moordinle deegaankaas aad muddo sanado badan ay haysteen cadawga al-shabaab ummadan ay ku dhibaateeyeen maalkooda iyo naftoodana ay ku banaysteen ilaahay fadligiis waxaa ka dulkiciyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkan uga guuleystay shabaabkii ilaa iyo masaafo 20 kiiloomitir 30 kiiloomitir ka badanna saaf laga dhigay oo hadda sa arkeedan ka imaanay anagoo nabadgelyo oo mashaaxiina soo marnay baaritaanna ka hoos sameynay dhulkaana waa dhul istiraatiiji ah waa dhulka Muqdisho loo soo marshay jiray qarax kaboondada Sabiib waa meelaha iska kala gooshi jireen haddana waxa degan ciidanka xoogga Soomaaliyeed gaar ahaan guuta 14 Oktoobar ee halkan degan howlgallo badan ka fulinaysa sida aragteen cadawgu waa daciifayo jabkiisa saacad ka dambeeyda oo sii burburaya waxaan rabaa marka baaq inaan u diro dhalinyarta la marxaabiyay Soomaaliyeed ka tirsan ururka shabaab baaqa madaxweynaha uu jeedo yiri qofkii soo dhiibay waa cafis waana arintiisana waxbaan ka qabanaynaa nolol fiicanna waa siinaynaa baaqaas mid lamid ah marka waxaan rabaa u dhow inaan iraahdo baaqaas ka faa'iideysta madaxweynaha fursadaas waa inay banaanta waa inay furan tahay wiilasheena tihiin soo dhawaada keenii noo yimaada waa soo dhaweysanaynaa laakiin ninkii baaqaas ka faa'iideysan waay oo aan qabana tilaabada ku haboon ka qaado doona hadii la yiraahdo haddana waxa soo dhiibay aragteen Ibraahim aan la jooga oo dadka aaga ka howlgali jira ah nolol fiican oo ku nool yahay asaga iyo staafkiisa ka tirsan noloshaas si fiican aan geedo laakiin noo yimaado hadii la yiraahdo marka waa in soo dhaweynayna soo dhiiba imaada dawladda inay timid waxaan ognahay kuwa cabsanaya raba inay noo yimaadaan waday noo soo maraan la aan in soo dhawaano waan inay imaano noo soo dhawaada noo imaada waa in soo dhaweynayna dadkiina kaasina wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya ee gacanta ku haya deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ciidamadu la wareegeen asbuuc ka hor halkaas oo iska hormaad uu ka dhexmaray saacadii ugu dambeeyay
militariga Soomaaliya iyo koox al-shabaab oo doonaysa inay dib u qabsato hase yeeshee militarigu waxa uu muujiyay inuu weli deegaankaasi uu gacanta ku hayo oo uu xasiloon yahay barnaamijka hargalka ayaanu ku guda jirnaa qaybihiisa hore